ladani ammaanka Muqdisho lagu xaqiijinayay ayaa xalay waxa xaafadaha Muqdisho ka sameeyay ciidamada booliska Soomaaliya iyo kuwa Amisom. Xaafadaha degmooyinka Hodan iyo Wardhigley ayaana ciidamadu si weyn u baarayeen iyagoona fatashayay gaadiidka dadku ay wataan. Howlgalka ayaa waxa hogaaminayay taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir General Axmed Xasan Maalin, kaasi oo sheegay in la joogto doono ammaanka howlgallada lagu xaqiijinayo. waxa weeye xilliga aan joogno waa 5 saac iyo bar marka waxa weeye waxaan joognaa degmada Wardhigley xaafadda la yiraahdo Xamar Jadiid ciidanka booliska oo Soomaaliyeed oo rondo sameynaya oo magaalada nabadgelyada ilaalinaya oo aad arkayseen sida wanaagsan ee ummadda loola dhaqmayo, sida wanaagsan ee suuqa loo ilaalinayo, sida wanaagsan ee nabadgelyada loo sigayo. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ummadda Soomaaliyeedna inaan u shaqeyno waajib bay nagu tahay. habeen baan u shaqeynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo, maalin baan u shaqeynaynaa. ciidanka booliska Soomaaliyeedna waxa waajib ku ah inuu waajibkiisa guto oo ilaaliyo ummadda Soomaaliyeed naftooda, hantidooda, sharcigana ilaaliyo ayaa waajib ku ah. sida aawadeed hadda xilligan arkayno 5 saac iyo bar ah ilaa iyo la gaarayo waqti dambe ayaa la soo jeedayaa, rondo lagu jirayaa, nabadgelyadana la ilaalinayaa. waa waajibaadka ay bixiyaan taliyaha ciidanka iyo maamulka gobolka iyo intaas oo dhan oo isku maskaxa, isku aqliya, isku aqoona, intaas in laga wada shaqeeyo nabadgelyada oo laga wada shaqeeyo ayaa muxuu ahay aan u nimid caawa meesha ugana shaqeynaa haddii Ilaahay yiraahdo. sidoo kale sargaalad ka tirsan ciidanka Amisom gaar ahaan kuwa booliska ee xalay howlgalka qayb ka ahaa ayaa sheegtay in Amisom booliska Soomaaliya ay gacan weyn ka siinayaan xaqiijinta iyo raadinta ammaanka magaalada Muqdisho. We support Somali police in their activities, especially patrols. We conduct patrols with the Somali police. Together, hand to hand, we are working hand to hand with the Somali police as our brothers. At the same time, we also do snap checking. Abdulrahman Abdullahi, Home Cable TV, magaalada Muqdisho.